waa wadanka Indonesia oo shaqooyin la isku siinayo hadii la saxo inaanad ureynin amaba aanad shiireynin bal hadaan arintan eegno hagaag ninkaasi waxa uu ka mid yahay dad fara badan oo u soo shaqo tagay mid kamida sharikadaha sida taga sidoo kale u shaqeeya laakiin dadka lagu qaado mootooyinka ama dhugdhugleyda wadanka Indonesia waa wadanka ugu dadka badan leh ee islaamka ee caalamka dadkiisa waxa lagu qiyaasaa 250 milyan oo qof marka tagto magaalada caasimadda Jakarta ayaa waxaad arkaysaa saxmadda faraha badan ee ka jirta magaaladaasi iyo magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi dabadeedna si dadkii ay ugu suurto gasho in ay gaadhaan hadba meesha ay doonayaan ayaa gawaaridiiba waa la iska dhaafay inta badan tagaasi ahaan loo isticmaali jiray ama dadku ay caadiga u wateen oo dabadeedna waxa lagu socdaa la raacaa mootooyinkaasi ama dhugdhugleyadaasi oo u shaqeynaya sidii tagaasida dhugdhugleyadaasi hadba imika sharikadihii lahaa ay sii bateen oo ilaa 40 bay gaadheen tartan xooga u dhaxeeya sida la qiyaasi karana dhugdhugleyda ama mootada marka qofku uu raacayo kama foga qofka mootada wada oo hadii qofkaasi uu dhididkiisa kala urayo ama uu shiirayaba waxa markaasi ku adkaanaysa qofku in dhugdhugleyda uu la raaco amaba uu adkaysto in ilaa halkii uu doonayay uu ku gaadho hadaanu dib uga dhicinba dabadeedna sharikadahaasi kamid ah ayaa sida sawiradaasi ay muujinayaan shaqaalihii ay qoranayeen inta marooxad xag hore laga soo furo ayaa nin ursanayaan dabadeedna uu istaba taagaya dabadeedna qaar fara badan baa iyagu sheegay oo shaqaalahaasi cusub kamid ah inay iskaba soo shaqeeyeen nin raggaasi kamidina waxa uu sheegay in isaga xaaskiisu ay u soo digtay oo ay tiri alaabta ka baxaysa waa khatar ama sheer fara badan baad leedahay dadna wuxuu sheegay inuu cadar fara badan isku soo jabiyay waa ninka garanka cad leh imika arkaysaan dabadeedna waxay noqotay shaqadii mid aan la isku eegaynin xirfadda qofkaasi uu leeyahay iyo mootada ama dhugdhugleyda sida uu wadayo laakiin imika waa la is ursanayaa wahagaag qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idin kala socoteen telefishanka Universal Studios magaalada London anigoo Cabdisalaam Herariya ayaa idin la socodsiinayay